madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa la filayaa inuu xilalka ka qaado wasiirro ka tirsan xukuumaddiisa sidoo kale waxaa la filayaa in isku shaandhaysal iyo baar ah ku sameeyo qaybaha xukuumadda warar kala duwan oo madax bannaan oo ay heshay warbaahinta xogreed media ayaa sheegaya in badi golaha wasiirada xilalka haya hadda ay waayi doonaan xilalka wasiirnimo ee hayaan sidoo kale barasaabada qaarkood ayaa la filayaa in ay ka howleelaan xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo muddo sanada jirta hadda warar kala duwan oo madax bannaan oo laga helay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay sheegayaan in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland toddobaadyadii u dambeeyay ku mashquulsanaa xulashada xubno cusub oo uu ku soo biirin doono xukuumaddiisa مسؤولينta madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro la filayo in xilalka ka qaado ayaa waxa kamid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda dibadejinta wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka horumarinta reer miyiga iyo deegaanka wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda cadaaladda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sidoo kale la filayaa inuu xilka ka qaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda مسؤولين cusub ayaa la filayaa oo xisbiyahanada xisbiga wadani ah iyo sidoo kale mas'uuliyiin dib uga soo ceshan doona xukuumaddii hore ee kulmiye inuu xilalka ku soo daro sidoo kale madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa la filayaa inuu seefta la iyagana la dhex qaado mas'uuliyiin ay ka mid yihiin hay'adaha madaxa bannaan kuwaas oo gudoomiyaasha qaarkood oo xilalka ka qaadi doona iyo gudoomiye ku-xigeenada wararku waxa kaloo inta ku daraya in barasaabada gobolada qaarkood ay xilalka waayi doonaan iyo ku-xigeenadooda wasiir ku-xigeenno iyo agaasimayaal guud ayaa ku jira sida la sheegay wararka laga helay qasriga madaxtooyada inay xilka qaadistu saameyn doonto sidoo kalena waxa la filayaa in safiirada qaarkood ay saameysay isku shaandhaynta la ballaaran ee la filayo in madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro sanad guurada koowaad ee xukuumaddiisa ku bilaabo 14 bisha December soo socota ayaa la filayaa inuu sameyn doono isku shaandhayntan ballaaran madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro mas'uuliyiinta xilalka waayaya ayaa qaarkood la xiriirinaya eedo musuqmaasuq oo ay intii xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro mas'uuliyiinta cusubsaday xilalka ma bilaabay in ay hanti ka sameystaan muddada kooban ayaa waxa la sheegay in ay waayi doonaan xilalka ay hayaan maareeyayaal gudoomiye ku-xigeenno iyo sidoo kale mas'uuliyiin hay'ado madax bannaan ayaa la sheegay in ay muddo sanad ah ku yagleeleen hanti cusub oo ay sameysteen sida guryo iyo dhulal fara badan oo iibsadeen geesta kale oo dadka guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama hanti dhowraha guud ayaa ku fashilmay eedo musuqmaasuq inuu ka jawaabo sidoo kalena baaritaano madax bannaan ku sameeyo hay'adaha fadeexadaha musuqmaasuqa ay dul hooganayaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la filayaa inuu hanti dhowrka laftiisa xilka ka qaado si kastaba ha ahaatee xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro hadda waxa ay jirtaa sanad buuxa waxaana la gelayaa in istixisaabtan ay ka rabto shacabkii doortay iyo kuwii kale ee Soomaaliland labaduba ma jiro war si rasmi ah arrimahan daaha uga qaadaya hase yeeshee ilo wareedyo madax bannaan ayaa sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro uu xukuumaddiisa ku soo kordhin doono mas'uuliyiin siyaasiyiin aqoon-yahano kuwaas oo ka soo xulan doona asxaabta mucaaradka iyo xisbigiisa intaba hawlaha arlada haddii lagu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo hawlaha arlada haddii lagu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyosina ilfajigan ayaa laga rabaa awoodiyosina ilfajigan ayaa laga rabaa hays oran cidi kuma arkayse aqal la jeexo hays oran cidi kuma arkayse afka buuxso hays oran cidi kuma arkayse aqal la jeexo hays oran cidi kuma arkayse afka buuxso nin xil qaadaye qadye hoye
howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo qol oo lahaa runtaa ujeeddadiisa ayaa laga rabaa qol oo lahaa runtaa ujeeddadiisa ayaa laga rabaa hays oran cidi kuma arkaysay shaqaha aadin hays oran cidi kuma arkaysay qaranka iibso hays oran cidi kuma arkaysay shaqaha aadin hays oran cidi kuma arkaysay qaranka iibso nin xilqaaday eed qadiyey nin xilqaaday eed qadiyey howlaha arlada si lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo howlaha arlada haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo orodiyo wax qaba asluub sanan ayaa laga rabaa orodiyo wax qaba asluub sanan ayaa laga rabaa hays oran kani kuma adeece qalinku arso hays oran kana kula ujeeda awr u buuxi hays oran kani kuma adeece qalinku arso hays oran kana kula ujeeda awr u buuxi nin xilqaaday qadiyey hooye nin xilqaaday qadiyey hooyo nin xilqaaday eed qadiyey